السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتي غالية ee ku xidhan barta YouTube ku leeyahay ee Andiso official dhammaantood niga mahadcelinay waqtigiina qaaliga ee hureysaan sidoo kale sidaadii garab istaagteen ee igu gaarsiiseen 15,000 iyo waliba 900 oh my god aad baa saacad qaaliga soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub mar kale iyo waxaan wadaa muuqaaladii ugu dambeeyay dagaalada ka dhacay gobolka Awdal iyo sidoo kale magaalada Seylac ee xaruntiisa gobolka Sanaag dhimasho iyo dhaawac badan oo la sheegay oo tiro beel ah sidoo kale beesha Gadabuursi iyo sidoo kale beesha Ciise oo dhimasho iyo dhaawac badan ku dhaxmaray magaalada iyo sidoo kale niwaaxigeeda magaalada Seylac iyo sidoo kale gobolka Awdal beesha madaniga ee Gadabuursi iyo sidoo kale beesha Ciise oo dagaal lagu hoobtay ku dhaxmaray gobolada Sanaag iyo sidoo kale Awdal wararkii ugu dambeeyay asxaabta qaaliga la wadaaga iyo cidda ku horeysay dagaalka cidda shalay weerarka qaaday iyo cidda mataqaana dhabar jabintii ugu weyneyd ay gaadhay jabkii ugu weynaana gaadhay ayaa rab asxaabta qaaliga in la wadaago balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad naxariista noo baadho channelka subscribe saarto sidoo kale muuqaalka like garayso sidoo kale aad iyo aad soo dhawaad asxaabta qaaliga marka la isku soo dhawaado markale ay soo noqdo asxaabta qaaliga waxa la sheegayaa in mataqaanaayay ilaa hadda waxa lagu jaawareersan yahay meel kasta oo gashaba cidda weerarka ku horeysay iyadoo dhawaan ahayd marka xukuumadda Soomaaliland kala dhaxashay labada beelood oo bishii Ramadaan ka soo wareegtay lagu heshiisiyay halkaasi cidna yeelan weerar qaadi haddaba sida wararku ay sheegay asxaabta qaaliga ama maanta dad xogogaala mataqaanaa wareystay waxay la wadaageen in ay weerarka ku horeeyeen beesha Gadabuursi ciidamada madaniga ee Gadabuursi halkaana jabkii ugu weynaa iyo dhimashadii ugu badnayd halkaana asxaabta qaaliga ay dhabar jabkii iyo dhimashadii ugu badnayd ay soo gaareen dhinaca beesha Gadabuursi iyo ciidamada madaniga taasoo lagu bacabiro mataqaanaa in iyo weerarka ay ku horeeyeen gaadmadana ay sameeyeen halkaasna ay ciidan aad iyo aad u tiro badan Gadabuursi ay soo gaareen sidoo wararka hadalka loo dhigay sidoo kalena iyagana dhinaca mataqaanaa Ciisena ay dad ka dhinteen sidoo kale la sheegay ilaa mataqaanaa 9 qof la sheegay sidoo kale iyo maxaabiis labada dhinac ba la kala qabsaday ayay la sheegaya hadda asxaabta qaaliga bal warkaas raba asxaabta qaaliga in la wadaago soo dhawaada muuqaalka sheer gareeya waa kane warkii ofseer taawada dagaal jahooyin badan ka dhacay ayaa ka bilaabmay subaxnimadii hore ee saaka gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland iyadoo khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh uu dhaliyay waqti badanna ay dhinacyadu dirirayeen ayaa dagaalkan maanta waxa uu kaga duwanaa dagaaladii hore ee dhex mari jiray beelaha walaalaha ah ee Gadabuursi iyo Ciise waqtigiisa oo dheeraa iyo hubka ay ciidan beeleedyadu isticmaalayeen oo ka badnaa kii hore dhinaca kalena goobjoogayaasha ayaa sheegay inay ciidamo ka soo tallaabeen labada wadan ee ay Soomaaliland deriska la tahay ee Djibouti iyo Ethiopia haddaba si aynu xog badan uga ogaano waxa si toos ah khadka ugu jira Cabdirasaaq oo la socday jahooyinkii uu dagaalkani ka dhacay ugu horreyntiina waxa aan weydiiyay sida uu ku bilaabmay dagaalada dhacay xalay ee ka dhacay gobolada galbeedka ee Soomaaliland iyo bariga Soomaaliland ee ka qaayeen galbeedka gobolka Awdal waxay geystay kulay khasaare badan oo xalay ilaa saqdi dhexe iyo balaashood dagaalka oo bilaabay ilaa labadii duhurnimo ilaa saacada joogno uu socdo dagaalku wali laba kala guran dhaawacyada iyo wixii khasaare kala gaaray dagaalkuna uu socdaa wali haadan Yuusufow hase yeeshee waxay ka soo tallaabeen maleeshiyaadku gobolka Shinni